أنا واحد لما magacayga شريف يحيى شريف موسى waxaan nin Soomaaliyeed waxaan doonayaa inaan sheekayar ka sheekeeyo ragga Soomaaliyeed ee xaasas kala dhamaantiiba waxaan u qaybiyay saddex qaybood qaybta koowaad waxaan u bixiyay gob qaybta labaadna waxaan u bixiyay rugmad qaybta saddexaadna waxaan u bixiyay waalasho qaybta koowaad ee gobta waxaan u bixiyay nin hal xaas leh waa nin goba biil ma waayo reerku kuma ceel qabo ciyaalkiisa uu cadaalad sameeyaa qaraabadiisa uu xiriiriyaa dariskiisa uu xiriiriyaa dhammaan dadka la nool deegaanka uu ku nool yahay wax fiican iyo fikrad fiican iyo nin goba inuu yahay nin fiican inuu yahay nin akhyaar inuu yahay ka aaminsan yahay ninka sababtoo gurigiisiiba u xafdiyaan gurigiisaan wax dhibaato ah ka haysanin wax problem gurigiisa kama jiro wax mushkilada ma jirto ninka gob baan u bixiyay ninka labaad waxaan u bixiyay waalasho waa nin laba xaas leh ninka labada xaas leh dhibaatooyin buu qabaa mar walba horta wuxuu ka fog yahay way u maleynayaan xaasaskiisu inuu ka fog yahay waxa cadaalad la yiraahdo iyaga say aaminsan yihiin ma cadaalad sameeyo biilkooda uma cadaalad sameeyo ciyaalkiisa uma cadaalad sameeyo qaraabadiisana uma cadaalad sameeyo waxaan ka wadaa waa fikradda ay aaminsan yihiin xaasaskiisu ay isaga kama hadlayaan waa laga yaabaa inuu aad u cadaalad sameeyo laakiin iyagu marna يعني 95% dumarka Soomaaliyeed marna uma aaminayaan qofka inuu wax cadaalad u sameeyo inkastoo waxaan u sii qaybiyay darajada waalida xugmadka darajada A iyo B eeda marka waxa qayb ninka qaba laba xaas oo isku hal family ka soo jeeda ama ay reerahooda is yaqaanaan ama ay cidooda istaqaano maalin walba wuxuu u heerayaa gurigiisii oo sheeko kala lagu hayo oo la leeyahay reerkaas waxa tartay reerkaas waxa u qabatay xaaskii kale waxa tartay ilmihii ciyaalkaagii kale waxa u qabatay mar walba habeen kasta waxa u baahantahay inaad sheeko u heeto adag oo waxba ka ogeyn aan waxba ka jirin la asal laha waliba waxaan u qaybta biidana waxa weeye nin laba xaas oo isaqoonin oo hal family ka soo jeedin qaba qaybta ugu dambaysa oo waalashada aan u bixiyay waa nin saddex xaas iyo afar xaas u gudbay boqolkiiba 90 waxaan aaminsanahay inuu mas'uuliyado badan dhumiyay oo ay ka mid tahay inuu reeriisa yani u cadaalad sameeyo inuu dhinaca yani beelka kala cadaalad sameeyo inuu ciyaalkiisa ogaado inuu iskoolkooda ciyaalkiisa la socdo xanuunkooda inuu la socdo yani waxba kama ogaadaan aasaska wax badan ragga intiisa badani rag badan oo kamid ah dhinaado wax badan kama ogaan marka maxaad waan lagu tilmaantay waxa waa lagu misnaaday mas'uuliyadii saarnaa ayuu wax badan dayacay oo waxba ka ogeyn saasaan anagu tilmaamay waali inkastoo istilaaxan anagu istilaax iska leeyahay uu yahay bas waxa kaloon aan ka rabay inaan ka hadlo iyadana laba qodob oo ah mid aan ragga aan kula dardaarmayo xaasaska badan oo ama darajada rugmadka ku jira ama darajada waalida ku jira midna ka waxaan lahaa xaasaska markay xaasasku ay laba iyo wax ka sii badan yeelataan waxa la fiican in aad magacyada xaasaskiina aydaan isticmaalin magac kaliya oo hal magac aad u isticmaashaan sida sheekhadii oo kale iyo taalo joogta waxa fiican inaad tiraahdo sheekhadii aaway amiiradii aaway lafdiya saas inaad isticmaasho yaa fiican haddii aad isticmaali weyso waxa dhacaya tasaadum iyo isku dhac baa dhacaya oo waxa laga yaabaa inuu mid aad magaceedii ta kale ku samido ama adoo Faadumo la joogo Xaliima aad tiraahdo hadda Xaliima tiraahdo waxa dhacaya dhibaato badan baa dhacaysa waxa kale oo kula talin lahaa iyadana haddii maray xaasaskaaga iyo ciyaalkaaga iyo ilmahaagu badan yihiin ilmahaaga ha way isticmaalin in badan magacyo waxaad u isticmaashaa midalan aabo oo kale inaad tiraahdo kii la joogto in aabo tiraahdo way fiican tahay sax laakiin adiga qofka xaasaska badan lana oo si fiican tahay maxaa yeelay haddii aabada isticmaali weydo waxaa laga yaabaa Xaliimo ki yaraay dhashay Cabdullaahi loo oran jiray adoo la jooga inaad ku ay Faadumo dhasho Maxamed la yiraahdo Maxamed ku tiraahdo waxa dhacaysa dhibaato marka islaanta xanaaqaysa wiilka ma ahan laakiin islaanta xanaaqaysa oo oranaysa gabadh islaanta laga jeclaa wiilkeeda dadka la jecel yaa magacooda la sheeg bay ku oranaysaa oo kale Shariif aad